marka waxaan niri Somaliland haddii xaaladaha ku jira imika ay ka baxdo dalka Mareykanka waxa tala aan ku siinaa inuu isku dayo inuu Somaliland dib wada xaajoodkii iyo la shaqayntii uu dib u soo celiyo. People working on kind of infrastructural development or trying to ship food in and these sorts of things, we found that the trade channels to the Horn of Africa were greatly constrained, and that was due to the insecurity caused by the Red Sea crisis. tan iyo dabayaqadii sanadkii hore waxaa ka taagnaa badda cas qulqulatooyin iyo xiisado ka dhashay markii xuutiyiinta dalka Yemen ee ay Iran taageerto ay beegsatay maraakiibta badda cas maraya. badda cas ayaa ah marin muhiim u ah dunida oo ay maraan 12% ganacsiga adduunka iskaga gudbaa. haddaba maxadka ISIR oo kamid ah maxadada dhinaca cilmi baarista ku sameeya siyaasadaha iyo waliba istiraatiijiyadaha dunida iyo kuwa geeska Afrika ayaa waxa ay soo saareen daraasad ay ku eegeen xaaladii u dambeysay ee badda cas iyo waliba waxyaabaha ka dhalan kara waqtigan. haddaba daraasadan oo ay sameeyeen Maxamed Cabdiraxmaan Xasan oo ah agaasimaha maxadka ISIR iyo sidoo kale William Robinson oo isaguna ah cilmi baare isla maxadka ISIR ka tirsan oo labadooduba maanta martiha kan falanqayntan aynu ku eegayno beebarka ay soo saareen ayaan ugu horeyn waxaan weydiin doonaa bal inuu sharaxaad ka bixiyo. Can you explain the main points of this study? waxaad sharaxaad ka bixisaa qodobada ugu muhiimsan ee daraasadan aad samayseen ay xambaarsan tahay. William Robinson waxa uu ku jawaabay isagoo sharaxaad ka bixinaya su'aashan. Yeah, absolutely. So we discovered that after talking to a number of Somaliland-based people working on kind of infrastructural development or trying to ship food in and these sorts of things, we found that the trade channels to the Horn of Africa were greatly constrained, and that was due to the insecurity caused by the Red Sea crisis. So with the importance of Djibouti's ports, the importance of Port Sudan, the reliance that Horn of Africa states have on shipping routes, also on grain that comes from Europe, other supplies that come from Europe, in particular electrical equipment. It has been causing a real issue for on the economic security in many different sectors across the region, and that is really acutely felt here in Somaliland based on the people we spoke to. So that got us thinking, particularly with climate change and daraasadani waxa ay baaris ku samaysay xaaladda ka taagan badda cas waxaana iftiimisay in dekedaha Somaliland, Djibouti iyo Suudaan ay u muhiim u yihiin geeska Afrika. waxa uu xusay inay daraasadani diiradda saartay caqabadaha ka taagan badda cas iyo waliba weerarada ay xuutiyiintu ku hayaan badda cas gaar ahaan maraakiibta dhinaca ganacsiga ee marta marinkaasi. halkaas oo uu xusay in dhibaatooyin ka taagani ay noqdeen kuwa saameyn ku yeeshay dalalka geeska Afrika maadaama oo badda cas ay ku teedsan yihiin dekado muhiim u ah geeska Afrika oo dalal geeska Afrika ku yaala ay leeyihiin. William Robinson waxa uu sheegay marka laga hadlayo xiisada ka dhalatay badda cas gaar ahaan waxyaabaha ay sida gaarka daraasadoodan ugu eegeen inay ka mid tahay saameynta ay Somaliland ku yeelatay iyo dalalka kale geeska Afrika ku yaala. waxaan u xusay inay tani tahay mid muhiim ah oo laga hadli karo. waxaan u xusay marka laga hadlayo saameynta ay ku yeelatay Somaliland in dadka Somaliland jooga ay ku sheegayaan in saameyn dhinaca dhaqaalaha ah ay arintan ku yeelatay. William Robinson waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay in faragelintii uu hore Sacuudigu dalka Yemen ugu sameeyay ay keentay inay awood yeelato kooxda Xuutiyiintu. Background of the Houthis, how they kind of operate as a group and what the Saudi intervention did, and how we're basically seeing the same patterns in this episode of conflict as well, insofar as the United States response really falling short of addressing the fundamentals here. And is there any consequences in this escalation in the Red Sea in the countries of Africa? William Robinson mar uu ka jawaabayay su'aal ahayd cawaaqib xumada iyo saameynta ka dhalatay xiisada badda cas ay ku yeelatay dalalka geeska Afrika. waxa uu sheegay in ay saameyn aad u xun ay ka dhalatay arinta xiisada ka taagan badda cas. waxa uu sheegay in saameyntaas tahay mid dhinaca dhaqaalaha ah. Greater risk of conflict or exacerbation of dormant conflicts.
okay maxamed waxyaabaha kale ee warbixintiina ka muuqata ee xambaarsan tahay inta uu sheegay William Soo marka laga maado maxaad ku dar lahayd waan mahadsantahay Salafan kusoo dhawow maxadka isir warbixintan aan soo saarnay oo runtii taxanaha qaar hore la daba socdeen oo runtii ka hadlayay maaragtay gobolka iyo marinkan badacas iyo amnigiisa runtii warqadan waxay culays badan saaraysay muhiimadda uu leeyahay marinkani muhiimadda uu leeyahay marinkan in xasradaha laga ilaaliyo muhiimadda qaabkan Washington ay u gashay oo loo bixiyay punitive strategy ama strategy-ga ah in wax lagu ciqaabo inaanay midho dhal muhiim ah yeelan karin waayo waxaan eegnay markii ay bilaabeen xootigu weerarkii koowaad ilaa imika oo si teelteel ay u socdaan iyo Mareykanka markii dambe taxaaluf weyn dhisay wixii ka dhashay waxaa ka dhashay horta may iskumay dayin inay joojiyaan ilaa imikana way wadaan xagga kale reer galbeedka waxay dhiseen taxaaluf weyn oo ilaa 40 dowladood ku dhow oo aanay ku jirin dowladaha waxaan loo yaqaano Red Sea Littoral States dowladaha Mareykan badacas ama badda cas iyo Bab-el-Mandeb iyo dhulkaas ku teersan inay ka maqan yihiin marka taas waxay muujinaysaa inay keeni karayso inaanay midho dhalin inay xaaladda uga sii dari karayso in ilaa imika halka dhibaatadu ka timid ee muhiimka ay keentay xasarada cusub ay tahay arrintan waxay dhacdaa qaabka Mareykanku uu u maamulay dagaalka ka socda Gaza oo ay ka muhiimsan tahay inta malaayiin iyo taxaluf badan la geliyo in xootiga la weeraro oo waddanka Yemen marka horeba xaalado bini'aadnimo khatar ah soo wajahaya haddana la sii faquuqo oo maaragtay go'doomiyo ay keenayso in maaragtay xaalado waaweyn waxa mara 15% ilaa 50% ganacsiga dunida oo dhan baa mara badacas Somaliland imika markan dadka la sheekaysanay dadka ganacsatada dadka maaragtay daraasay dhammaan waxay sheegayaan in wax badan ay runtii aad u kacay in imika ay noqonayso in laga soo wareego xagga South Africa intaasi ay adkeynayso maciishadii ay adkeynayso shidaalkii ay keenayso dhibaatooyin badan marka muhiimadda ugu weyn ee paperka darasa waxa weeye siyaasadda Washington ay ku eegtay waxa weeye mid aan waxtar badan keeni doonin uga sii dari karta sida daraaddeedna loo baahan yahay in dib loogu noqdo marka tala bixino okay marka maxamed maxay Washington marka laga hadlayo arrimahan jawaabta ay ka bixisay xaaladii ka taagneed badda cas mayay uga sii dartay mise xal bay keentay waniga og inay magaranaysaa ilaaliso maraakiib halka marayso oo inta badan ay laftooda weerar ku qaadaan xoutiyiinta xootigu weerarka wuxuu bilaabay xilligii maaragtay dagaalkan Gaza uu bilowday dowlado badan oo gobolka ah oo geeska Afrika ku jira qaarkood sida Djibouti oo kale waxay isku dayeen inay maaragtay aanay qaabka Washington u gashay qaab ka duwan ay arrinta u galeen waa muhiim marinkan in laga ilaaliyo xasaradaha sidoo kale waxaa muhiim ah inaan maaragtay midi lagu taagin oo maaragtay sidii nimankan ay u sameeyeen waa nin sida actor wali cid ma aqoonsana gudaha Yemen kama aha popular oo dad laga taageersan maaha marka waxay keenaysaa macallin inay iyaga si emboldened ku samayso ama ay awood ay siiso in maaragtay loo arko dad u dagaalamaya qadiyad islaam qadiyad Yemen dabeetana gudihiina ay keento xaaladii Yemen inay sii cakanaato waxay taabatay warbixintu in wada hadalkii iyo dib u heshiisiintii iyaga iyo Sacuudiga dhex socotay macallin arrintan khatar gelin karayso ay tahay marka waxaan leenahay muhiimaddu waxa weeye halka salka qorto waxa weeye dagaalka nasiib darrada ah ama xasuuqa ka socda Gaza oo u baahan in maaragtay dunidoo dhan meel uga soo wada jeesato halka maaragtay 40 waddan wax ka badan oo ay ka maqan yihiin dalkii gobolka Kulaali ay maaragtay ciidan kusoo kordhinayaan dagaal kusoo kordhinay ilaa in 400 oo jeer ama weerar bay qaadeen halka xuutigu weli uu sii laba jibaarayo isaguna maraakiibta qabsanayo sii laba jibaarayo marka halkaas haddii sidaa ku dhacdo Somaliland waa meelaha ugu culus khatarta ugu weyn kusoo kordhay okay marka maadaama oo dhibaatadii aad ka waranteen maxaad istiraal leedihiin waa xal bay noqon kartaa ama recommendations aad soo jeediseen warbixinteena ku jiro xagga warbixinaha xagga tala bixintu way ballaaran tahay laakiin mid iyo laba iyo saddex baan ka taaban karaa midda koowaad waxa weeye horta kow in dib u noqosho lagu sameeyo Mareykanku wuxuu soo arkaa inuu maaragtay dal super power yahay inuu awood leeyahay dabcan dadkooga gudaha iyo shacabka reer galbeedka waxay u arkayaan markay yidhaahdaan weerar baan qaadnay arrin iibsamaysa laakiin ay arrintaa ku noqdaan inay la xaajoodaan wadamada gobolka ku yaala si arrintan u noqoto arrin gobolka oo dhan amnigiisa waxtar leh kow weyn laba in meel looga soo wada jeesto dhibaatada ka taagan Gaza oo iyadana xalkeeda la keeno saddex in dowladaha muhiimka ah ee gobolkan ku yaala iyaga iskood ay u samaystaan taxaluf ay doonayaan inay Mareykanka siyaasadiisa wax kaga bedelaan afraad waxa ku soo gabagabeynay oo aad muhiim ah Somaliland oo aan aragnay inay muhiim tahay maaragtay inay door ku yeelato
marka waxaan nidhi somaliland haddii xaaladaha ku jira iminka ay ka baxdo dalka maraykanka waxaa tala aan ku siinaa inuu isku dayo inuu somaliland dib wadaxaajoodkii iyo la shaqayntii uu dib u soo celiyo waxaan saa u leenahay somaliland iminka doorashooyin baa kasoo socda somaliland arrintii laascaanood ama soo bataagan haddii somaliland arrinta doorashooyinka si macno leh ay u maareyso arrinta khilaafaadka ka taagan gobolka soolna ay maareyso waxay somaliland noqonaysaa wadan ama gobolkan wadan kamid ah oo runtii kuwa kaloo dhan fursad ka muhiimsan haysta tusaale ahaan Ethiopia dhibaatooyin waaweyn baa haysta oo amni Suudaan mid kala haysta marka somaliland waxay noqon kartaa halka ka mid noqon kartaa marka waxaan maraykanka u soo jeedinay inuu somaliland laftirkeeda aanu indhaha kala lina u dib maaragtay wadaxaajoodkeedii waxaan ognahay in badan markii doorashooyinka somaliland ay dib u dhici jireen markii raafi sool taagnaa in maraykanka si joogtaa somaliland isugu hayay taasina ay ka timid sababtoo markii hore ay somaliland isku day maraykanka wadaxaajood dhow la yeesho laakiin arrimahaas khatar kaliya iminka haddii arrimihii somaliland u eegtay inay xalinayso maraykanka waxaa usoo jeedinaya in maaragtay arrinta somaliland uu ka dhigo qayb halka ku jirta oo kale marka uu toos la macaamilo kale ama uu hadduu sali ka samaysanayo kale uu la amgalay muhiim u dhowto bad leeyahay somaliland hawlaha socda in maraykanku qayb wada hadal la yeesho hayo muhiimad weyn somaliland leedahay amni bay haysataa dhulka ay maamusho badda cas ku teersan runtii khalkhal badan kuma jiro horena maraykanku wuxuu isku dayay in somaliland la macaamilo hadday tahay pentagonka iyo hadday tahay african bureau marka intii dambe khalkhal baa soo galay dib u dhac baa soo galay marka taasaan leenahay haddii maaragtay uu maraykanku isku dayo dib u noqdo siyaasaddiisa si somaliland waa dib u noqdaa meed eegteen ama si gaar ah u taagteen saameynta ay ku yeelatay dhaqaalaha Soomaaliland arrimaha badda ka taagan tusaale ahaan haday noqoto waxyaabaha inta badan Soomaaliland dibadii wax uga soo degan marka saameyn ma ku yeelan waxyaabaha badda cas ka socda nolosha dadka Soomaaliland Yes, yeah. So the impact is it's basically causing a strain on supply lines that have already been under pressure. So with climate change as the initial hit, the Russia-Ukraine war has also created shortages, and then Port Sudan has, since the outbreak of war in Sudan, has had a kind of noticeable reduction of traffic. William Robinson waxa uu sheegay in xiisadda ka aloosan badda casi ay tahay mid saameyn ku yeelatay dhaqaalaheeda maadaama oo markii horena ay saameyno kala duwani dhaqaalaha Soomaaliland ay saameeyeen kuwaas oo ka mid ahaayeen dagaalka Ukraine iyo waliba isbedelka cimiladu waxa uu xusay markaad la sheegay sida ayuu yiri dadka ganacsatada Soomaaliland gaar ahaan kuwa soo dejiya cuntada qalabka dhismaha iyo leerku waxa ay ku sheegayaan in ay xaaladdu ka duwan tahay tii ka horeysay intii aan xiisadda badda casi aan kicin maadaama maraakiib badan oo kontiinarada ka heli jirtay oo mari jirtay badda cas ay cabsi darteed ay arintaasi u joojiyeen taasina ay saameyn ku yeelatay qiimaha kontiinarada new insurance premiums that are 4 times that of what they were before the crisis, and I think it's only a matter of time before this flows down to quite intimately affect the common person. So whilst we're still in the early days, the first few months of this insecurity, and it is primarily hurting suppliers and people in the industries I've just mentioned, but I think unless the United States re-strategize, it will trickle down and really hurt the common person to a greater degree. aad iyo aad bay daawadayaal u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen maxamed cabdiraxmaan xasan iyo Robinson oo ah cilmi baarayaal ka tirsan maxadka ISIR oo soo saaray daraasad ay ku sameeyeen dhibaatooyinka iyo maqulqulatooyinka ka taagan badda cas iyo saameynta kala duwan ee ka dhalatay ee dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ee gobolka Geeska Afrika ay ku yeelateen tan barnaamijka la midkulmdano waxaad ka tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh